arkaysaan waa qolka sideedaad la yiraahdo way qolka sideedaad ah imika dhexda waa la dalooliyay barigan anigu ku xidhnaa dhexda ma daloolin halka kor xataa daloolkaasi ma weyneen inta dambe la daloolay qolka sideedaad ah waa qol wuxuu ka kooban yahay gudihiisa markaad gasho 4 qol iyo 4 qol iska soo horjeeda sideed qolba gudaha ku jira marka qolkan waxa way maalmihii la keenay ugu horeysay intii aan Nuswayl laga qaadin ayaa la geliyay halkan waxaan kula xidhnaa dhowr oday waa kula xidhnaa qolkan waxa galayay laba oday oo la yiraahdo Maxamed Wacdi oo Finland jooga iyo Sheekh Nasri oo laba oday oo raasa laga soo xidhay ah ayaa kan ku xidhnaa kan waxa ku xidhnaa ana ku xidhnaa kan oo marna ma ka horan galay marna kana galayay kan waxa ku xidhnaa Abdullahi Qaasim baa ku xidhnaa Abdullahi Qaasim oo isaguna jijiga laga soo xidhay oo saaxiibka Zuwaynaan isku raacnay qolkan waxa ku xidhnaa maarayaha imika mass media-ga Cabdirasaaq Caro iyo Cabdi Salaad Cabdiraxmaan Salaad xagan waxa ku xidhnaa nin isaguna yar wardheer oo la yiraahdo Yusuf Bedel halkan waxa ku xidhnaa Cabdi Saadaale sheeka xaga naga dhacday waxa dhacday qolkan markuu qol kasta albaabku u xidhan yahay maalmihii ugu horeysaan imid baa waxaan arkay saado arkaysaan albaabkan halka hore gidib yar buu leeyahay halka ira dhagax yar soo maraytaan marka dhagaxa yar baa markaan imid baa anoo halkan socda ayaan waxaan niyo injineerka dhisay muxuu dhagaxa yar u sameeyay ma moodayn ma garanayn sababtu sameeyay waxaan isri waaba lagu turunturoon qofku markuu galayo waxa ay dhici kartaa inuu ku turunturoodo ma garanayn ujeedadeedu waxay ahayd bal si waan xidhay aan idin tusay ujeedadeedu waxay ahayd marka la xidho uu albaabka u banay iftiin u banay marka la xidho soo halka ma aragtaan inuu darbigi yaraa banaan yahay jeerigaana biyaha la keeni halkaas biyaha laga shubi guriga marka dhagaxan yar waxa loo sameeyay biyo inaan dibadda u bixin oo halka laga shubo albaabkiyo saa u xidhan halkaas biyaha laga shubi biyaha waxa la gaarsiinayaa geerkaas uu gaari guriga halkaas qulqul buu yahay halka biyaha saan u bixin baa loo sameeyay marka waan yaabi jiray waxaan markii dambe maalin baa waxa dhacday 30 wiil oo ururka oo la fala soo galiyay ana qolka ku jira markii la galiyay albaabkiisa loogu xidhay ayaa lagu bilaabay ma taqaanaa in biyo lagu shubo wiilasha waa la soo garaacay waa la soo dilay markii la soo dilay waa dhiig baa ka socday biyo markii hore lagu shubo nadiif bay ahaayeen halkan waan ka arkayay sababta in biyaha muuqata in yar dabadeed baa biyo waxa dhacday way isbedeleen dhiigii baa soo galay dhiigii baa casaan biyo way casaadeen ilaa iyo maqribkii biyihiisa dhiig ugu baxay markii dambe way madoobaadeen dhiigii halkan nimankii lagu dilay waxa kamid ah Shambalayo walaalkii Ahmed Khabiir waxa kamid ah Zimbabwe waxa kamid ah nin la yiraahdo Allah mas'alan Chabartimiyo aha waxa kamid ah nin la yiraahdo Khadar Adagani waxa dhiman fara badan oo urka oo la flow haystay halkan saa loogu dilay marka biyaha maalinta lagu shubayna anaaba u joogayba oo halkan ku xidhnaa halkan soo maaragtaan guriga biyaha si loogu shubo marka la soo oodo in biyuhu u bixin dhagaxaas biyaha u celinaya guriga intiisa kale biyuhu way u buuxsan saasa marka waxa loo sameeyay geerasha waxa loo sameeyay in biyo qabad u noqdo ayuu sameeyay biyaha halkan waxa naga soo martay sheeko qosol badan aniga Cabdi Saadaalo qolkan ku jirna ayaa Cabdi Saadaalo qayliyay uu cawaaday markuu cawaaday waxaan ku warniyahow sootin laama aha nimanka xagga degan adiga u geesisanaaye maxaa la cawaadaysaa anoo reerkiisa ugu fulaysan ma cawaadeen boolisku ina dhageysanayeen sheekadii waxa loo geeyay ninkii wadanka haystay oo kaasiir waliga inuu kaasi ooyin dadsi ka soo sameeyay marka halkan suuliyadan isticmaalayna waxa 4 saac marba la soo saaray 4 saac marka la soo saaro halka dambe la soo kaxaynay inay dhisan yihiin ilaa imka u maleynaya warmaadi baa qofkaasi mahdi ibraadero ni wanaagsan nikaasi wuxuu kamid yahay wiilasha askarta ugu fiican buu kamid yahay mahdi baa la yiraahdaa wiilka iyo wiil abtigi ah waxa weey wiilasha aan sharafta gaarka u hayno weeye maxabiista aan dhibi jirin dadka u nixi jiray marka dadka la garaacayo ma taqaana uu beer la xabs jiray waxyaabaha yaryar ay ma taqaana cuntada ama kiniinka ah xanuunka markuu qofku ku bato kiniinka intay soo xadaan ay hoos dadku u keen jireen marka qofka wanaagiisa waa la sheegaa waxaan waa suuliyada marka aan la keeni jiray suuliyada 4 saac mar maalintan mahdi oo kala helo ayaa waxa dhici jirtay in uu intuu furaha si uu ku soo qaado yiraahdo way xanuunsanayaan ayuu na soo saari jiray oo na keeni jiray marka walaalayaal
haddaan raano askartu way wada xumaayeen waa been weeye askar wanaagsan baa jirta imika wiilka halkaan ku salaamayeen oo kale wiil la yiraahdo Cali Iid oo abti u yahay niman wanaagsan baa jira oo aad iyo aad annaga noo ixtiraami jiray oo dad yacni Soomaalinimadu ay ku dheer tahay oo ku mataqaanaa naxaya ay ahaayeen inkastoo dulmigii ay ka cabsanayeen haddana laakiin inta yar wax ku tari karaan haddii mar aad qofka aad ka nabad helayso mataqaanaa ishiisa iyo gacantiisa iyo afkiisa waa qof Soomaali ha waayahay sideedaa ku jira makana ku jiray aniga agteeda nin baa lagu dilaa aan Allah jiifa qaale waxa lagu dilay hay sideedaa horta ninkan sideed ba ku jirtay hay maxaad kaga jirtay sideed anigu sanadii shan laba ku jiray hay sideed sanadii rahmaan rahiim anigu meeshan baan ku caqabadaysnaa nin kale ila caqabadaysnaa oo reer jigjiga ah ninkaasi wuxuu ku eedaysnaa al-shabaab xaqana lagala baxay waa la biceeyay waa la biceeyay macnid bacda qoorta loo galiyay barbari ku jirto waa la jir dilay gurigu biyaa nooga buuxay inta afka la qabtay baa jirikaan biyaa lagu shubay kolka naftii markay qabatay ayuu nin meeshan joogi jiray oo taliyaha xabsiga ka ahaa ayaa xagga iskaga istaagay laba kalena feerahay kaga tumeen mid mayd buu naftii baa ka baxday anaa la iga rab dhigay anna waa la biceeyay xaqana ku jirnay maalinimo meydka ma bixin karnaa leeydi ninkii aniga hadalku igula dardaarnay macal wuxuu ii sheegay qabiilkooga muxuu ku yiri waxaan ahay nin bartiraan ahay waxa la yiraahdaa Axmed Nuur waxaan deganahay jigjiga waxaan ahay nin ganacsada ah xaqan sidaas la ii dilay handaad baxdid war dadka yagi inaan meesha ku dhintay oo ninka hebel la yiraaho idilay iga gaarsiib buu oo nabarka u dhintay hadalkiisa u dambeysay markii igu agdhimanay ninkaas xaqani waxa igula jiro kala Sheekh Axmed maayarkii magaalada jigjiga aniga isaga ku wada jirnay kolkuu ninkii dhintay ee laga saaray waxaana nagu shubay 7 jirikaan oo xaar ah ayaa xaqan nagu shubay waxa la yiri Sheekh Axmed isma taagi karaya saa ha u taagnaado ha yuuqnaado gidaarka haysto adiguna xaarka dhax fadhi is-aaga labadiin kolka meeshani waxa ka jirtay waxa ku dhintoo kala mid kale Oromo ah ayaa meesha ku dhintay oo anigu u taagnaa nadartu meeshan horta waa meesha dadka lagu dhibi jiray qolyo badan oo meesha soo gashay hadda way wada joogaanba xagan waxa joogi jiray nin ka shaqeeyo oo dadka ciqaabi jiray oo ka soo gali jiray korka oo darajo ku qaatay oo dadka xagan ba intana la seexiyo waa tan barti xagan baan la gelin jiray xagan dalooshaan la gelinayay waxaan nagu shubi jiray xaar xagan dalooshaan la seexinayaan ko afara xaar baan nagu shubay kolka dhibkaasa meesha ka jirta anu intaasaan uga soo taagnaa waay Ismaaciil aad baan maasanta magacaawno Jibriil Maxamuud imika waxa ku xukuman tahay wax madaxa ku niba ma xukun isma waa sax Ismaaciil ina bixi waxaan raacaynaa imika oo balna tusaya isagoo horumareeday waxaan imika daba galeynaa waa wariyaha sare professionalka waa mudane Ismaaciil Ibrahim Buurgaabo bal Ismaaciil oo maanta taariikh fara badan baan soo maray taariikh fara badan ba xabsiin ka soo maray waxaan doonayaa inaad balna soo tusto gurigii aad ku xidhnayd ee u dambeeyay miyaa miskii u horeeyaan tagnaa كان بقنا ما أنت halkan waa caqabad isdeedaad oo tii ugu وتوان صار dambeysay maskaram ilaa hidar baan ku jiray qolka aan ku jiray waxa la yiraahdaa 17aad waxa weey masaajidkan ayuu dhinaca ka yahay waa qolkii laga sii daayay waa qolkii maalintii gurada aan ka tageynay aan joogay waxa la yiraahdaa 17aad oo ku yaala halkan dabadiisa 17aad waxay ahayd meesha laga yeeray anoo galab casar masaajidka ku soo tukaday ayaan ka baxnay waxa weey oo aan ka soo liiga yeeray ninka ka yeerada yeeray asxaabteedii qaar baa wali joogto aad baan uga xumahay guuleedo dhalinyaro yar oo waliba dhalinyarada ciidanka ahayd in wali meesha ku sii xiran yihiin oo waliba aan cadaalad lagu soo xukumin ma wada xukunna hadda raggan ma wada xukunna toddobaad baa la yiraahdaa waa qolkan sararteedii baan ku geyn sarartii ugu dambeysay la iiga yeeray waa halkan maanta oo kale waxaan u jeedaan waa la qurxiyay waxa loo qurxiyay waad garanaysaa waxa loo qurxiyay halkan ayaan deganaa sararta yarta ah ayaa laga yeeray sarartan waxa mararka qaarkood lagu seexanayay 6 qof 2 kore 2 dhexda ah iyo halkan oo daasadaha caanaha niidaha inta la dhigo oo ciid lagu shubo kor loogu qaado 2 hoos galeysay 6 qof ayaa halkan lagu deganaa 200 oo qof ayaa guriga lagu gali jiray imika maanta waa la qurxiyay maanta waxa macalleer baa lagu xiray maxaa sababta maxaa u malaynaysaa waxa weey waan dhaqanaa meeshan cilmigeeda sababta loo qurxiyay aan ku sheegay waxa loo qurxiyay markii human right imaanayaan markii wafti la rabo
xalay oo kale laga shaqeeyay dhalinyaradan xalay haye loo sheegay si wal dhalinyarada weydiine maxaa xal qabateen annaga xal waxaan qabanay horta waxaan imaan baan noo leeyahay mas'uuliin ciirdigan haye waan hagaajinay guryaha haye waxa weyn xal oo dhan waan ka shaqeynay haye marka sida Ismaaciil uu sheegay waxaan kaloon ku sheegay guuleedo hadda waliba de hagaajintu waa meeshu iska dad yar tahay marka human rights imaanayaan ee gurigan 200 oo qof lagu geliyo waxa laga qaadi qof walba hal goob laga qaadi day hadda waa human rights Ethiopia waa la hagaajin shandarooyinka lagu xidhi kadib halkan meelahan dahyaa lagu xidhi waxaan hadda u jeeday dhalinyarada samaysay ubax ma ahan wax ma baca laga sameeyaa marka nadaafad buu gurigu leeyahay sinasraad buu leeyahay dad farshaxan ku leeyahay kaab buu leeyahay qaab dhismeedkiisa kaaba halkan uu fuula meelaha ugu darreen ilaaweyn waxa weeye halkan uu kaabaha fuuli 200 oo qof baa halkan saaran guuleedo waa lagu soo istaajinay waxa weeye waxa lagu dhihi waxaan qiimeynaynaa budcadkan weyn ee buur gaaba ah ee wasaan u fadhiya si waxa ka soo maray haye budcadkan weyn ayaa noo taagan waa ninkii afgambiyey dowladdii waa ninka isagoo dowladda lacagteeda haysta waxa weeye dowladda afgambiyey waxaan ka qiimeynaynaa arrimo isugu jira afgambigii waxaan weydiinaynaa ciidankii ay dowladdu ku afgambinayeen waxaan kaloo weydiinaynaa wuxuu hub hayo waxaan weydiinaynaa hantida uu leeyahay guriga waxaan u sheegayaa dhammaantii inuu ka qayb qaato budcadkan oo la saxo la ciqaabo wara si fiican istaag away injura live aan markaas 200 oo qof la aye saynu taagan yahay saynu taagan yahay waa la argagixi haye